dowladda Puntland waxay markasta ku taagan tahay in doorashada golayaasha sharci dejinta iyo madaxweynaha ay ku dhacdo waqtigeeda lagana fogaado muddo kororsi keeni kara xasilooni darro iyo burbur. In la laalo xeerka doorashada ee la ansixiyey kaas oo ay ku jiraan qodobo badan oo ka hor imaanaya dastuurka ku-meel gaarka ah. In saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya ay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo degdeg ah si ay uga heshiiyaan nidaamka doorashada, maamulka doorashada iyo arrimaha kale ee ku hareeraysan doorashada, taas oo ah waajib dastuuri ah. Waxaan caddaynaynaa in guddiga doorashada madaxa bannaan ee heer federaal ay u xilsaaran yihiin qabashada doorasho qof iyo cod ah laguna heshiiyey. Mas-uuliyadooduna ma aha in ay ka hadlaan ama u gogol xaaraan muddo kordhin loo sameeyo golayaasha dowladda federaalka ah. In beesha caalamku ka shaqayso sidii ay ku dhici lahayd doorasho loo dhan yahay, la isla ogol yahay, kuna qabsoonto waqtigeeda iyadoo la tixgelinayo in aan dowladda federaalka ah dhammaystirin shaqooyinkii aasaasiga u ahaa qabashada doorashada qof iyo cod.